ديار مدين ديار مدين يادين كوماندوس سوماليا إزدير. kuwani waa ururka sagaalaad guutada 18aad ee kumaandooska xooga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor. waa arooryo hore dalka Turkiga ayaa xalay saqdi dhexe waxa ka soo qaaday diyaarad nooca ciidamada militariga ah waxay ka soo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan qaybta ciidanka cirka ee xooga dalka kumaandooska xooga dalka ee Gorgor inta aan loo qaadin xerada Isbaarta ee dalka Turkiga oo ay ku soo qaateen tababaro casri ah oo la xiriira kumaandooska waxay tababar noocyo kala duwan leh ku qaateen kuliyadda tababarada xooga dalka ee Turkisom magaalada Muqdisho. taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka General Biixi agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliye taliyaha kuliyadda Turkisom General Yacquub saraakiil ka tirsan xooga dalka iyo Turkiga ayaa soo dhaweeyay salaan sharafeed kadib taliyaha ciidanka dhulka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa mid u gacan qaaday saraakiisha iyo askarta ururka sagaalaad ee guutada 18aad ee Gorgor iyagoona muujiyay inay aad ugu faraxsan yihiin ku soo laabashada dalkooda hooyo u qaabilsamaha arrimaha tababarada ee Turkiga Usmaan Yalmas oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ururka sagaalaad qaybihiisa kumaandooska xooga dalka ee Gorgor isla markaasna tababar casri ah ku soo qaateen dalka Turkiga. taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka General Maxamed Tahliil Biixi oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ururka sagaalaad qaybta 18aad kumaandooska xooga dalka Gorgor in ay qayb ka qaadan doonaan la dagaalanka dalka looga ciribtirayo kooxda argagixisada Al-Shabaab. cadawga gudaha ku jira al-shabaab oo maalin walba shacabka Soomaaliyeed gumaad waxaa laydinka rabaa inaad ula dagaalantaan sida uu shacabka Soomaaliyeed ula dagaalamayo si la mid inaad ula dagaalantaan waxaa laydinka rabaa xuduudaha dalka inaad sugtaan aad baan idinku mahadcelinayaa idiinla soo dhawaynayaa difcaddan maanta timid waa difcaddii sagaalaad waxaa isla maanta baxahaya difcaddii tobnaad baa baxaysa haddii ilaahay yidhaahdo taasuna waxay muujinaysaa tababarka iyo koronsiimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka dhulka ciidanka Gorgor waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ku faano maanta cadawguna uu ka naxo Gorgor ha noolaado waxaa laydinka rabaa ciidanka Gorgorow halka inaad ku qorataan Soomaalinimo inaad ku qorataan taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa ku howlan tababarida iyo qalabaynta ciidanka iyadoo gacan laga helayo saaxiibada caalamka ee dawladda federaalka Soomaaliya. Fatxi Cabdulaahi Cabdinuur idaacadda codka ciidamada qalabka sida magaalada Muqdisho.